mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga toddobaad kulankiisa 13aad waxaana shir gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare Cali Shacbaan Ibrahim oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshirow iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare Cabdullaahi Xirsi Timacade. ajendaha kulanka ayaa ahaa dooda qodobada cutubka shanaad ee dastuurka ku-meel gaarka ah ayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka waxay sii ambaqaadeen ka doodista cutubka shanaad ee dastuurka. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare Cali Shacbaan Ibrahim oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in la soo gabagabeeyay dooda la xiriirto cutubka shanaad ee dastuurka ku-meel gaarka ee samar ahaantaana kulankan kan xigo ee dhici doono maalinta Sabtida ee bilaaban doonto dooda cutubka lixaad.